السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا أصحاب تلقى نقدر ونسميل والبوا شوكتان يسول بوا مقال كيجو ومركا إدين سو قاريبة وحندون يا مقال كان إن كجا هالله أرين وين أو كوسو كورتي سوماليدا دجن دال كان أمريكانك وحنو بدأ أكسون هاي أنتي وحيل كيمادي مدحولها دال كأمريكانك دونالد شام إن سوماليدو أي أهاي برتلماميد وين الله بيكسانيو in dadkii Soomaalida ahaa ee qaxootiga ku ahaa dalkan Mareykanka laga dhaxbixiyay 360 milyan ee dalkan deganaa ayagoo qoomiyad yar ah isla markaasna dalkan intooda badan ba immigrants ku ah waxaanu arkaynaa in Soomaalida laga dhigay tuka cambaarle mudooyinkii hadda la soo dhaafay oo dhan qofkii loo arkay inuu Soomaali yahay oo uu dhaqdhaqaaqayo oo uu hami siyaasadeed leeyahay kii ganacsada ah kii loo arko inuu xoogaa business isku aadistay mid walba oo Soomaali ah beegsi xoog leh ayaa ku socday mudooyinka la soo dhaafay marar badan baynu ka hadalnay waxa ilhaan umar lagu sameeyay wixii Minnesota ka socday wixii ganacsiyada Soomaalida ka socday iyo sida Trump iyo ragiisu ay Soomaalida u weerarayeen hadda marka waxa soo kordhay arrin kale oo weyn dhinacna ka ah guul weyn oo Soomaalidu ay markaasi gaartay kuna socoto wadadii guusha dhinac kan la ka arin riski ah oo loo baahan yahay inay Soomaalidu ay si weyn ay markaasi ay isugu duubnaato una istaagto waxa soo kordhay way su'aashu waxa jira wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo magaciisa Liibaan Maxamed la yiraahdo daadiisu ay tahay 27 sano jir ku dhashay gudaha dalkan Mareykanka oo halkaanba ku dhashay wiilkaas dhalinyarada ah ayaa wuxuu noqday wiil saameyn weyn ku dhaxyeeshay siyaasadda dalka Mareykanka kadibna qalqal weyn ku riday 24 saac la soo dhaafay kooxaha cunsuriga ah uu hogaamiyo madaxweynaha Donald Trump iyo ragiisii ahaana qof aad iyo aad hadalkiisu uu cadcad yahay marka wiilkan Soomaaliga ah ee magaciisa Liibaan la yiraahdo ayaa wuxuu noqonayaa wiil sidii maxaa la yiraahdaa Mamdani وهذالكيسو عد يهي una dhiiran yahay taasoo dhalisay in cunsurgiyo dhan ay istaagaan arintaasuna ay noqoto mid ugu weyn ee maanta dalka Mareykanka ka taagan maxaa sababay marka in wiilkan loogu yeero Mamdani waa maxay waxa aynu Liibaan ka ognahay ayaan fiirin doonaa marka dambe waxaan fiirin doonaa ka Soomaali ahaan waa maxay shaqada inoo taala oo aynu u baahanahay inaynu qabanno iyo faa'iidada uu wiilkani u leeyahay dadka Soomaaliyeedna waan idin sheegaya hadan ku bilaabo sababta wiilkan loogu yeerayo waa Mamdani markii aan xuraamay research aan sameeyay xoga badan aan isku dardaray dadka u campaign gareynaya qaar badan oo kamid ah aan la hadlay ayaa waxaan ogaaday wiilkan inuu leeyahay ilaa iyo 3 qodob oo cajiib ah isla markaasna ka dhigaysa sababta loo leeyahay waa new Mamdani marka ugu horeysa waa nin dhalinyaro ah oo codkar ah waa nin hadalka uu leeyahay aaminsan si adagna markaasi u leh waa nin aan hadalka kala gabanaynin kooxaha cunsuriga ah isla markaasna ka hadlaya message aad moodid inuu Soomaalida iyo immigrantska iyo dadka annaga nala midka ah nin u hadlaya oo waliba codkiisu uu aad iyo aad u xanuujinayo kooxaha cunsuriga weeye wana sababta loo leeyahay waa new Mamdani wuxuu ahaa nin hadalkiisu ay dareemayaan oo waliba uu xanuun ku ahaa Trump iyo ragiisa marka qodobkaasi asaga iyo Mamdani ayaad mud wana waxa ka dhigaya inuu dhig cusub uu hadda ku shubayo siyaasadda Mareykanka iyo waliba xilka uu ordayo oo ah inuu noqon rabo Congress-ka dalka Mareykanka maan xildhibaanada localka ah ma ha dawladda hoose haduu guulaysto wuxuu noqon doonaa qofka labaad oo ilhaan soo raaca oo markaasi Congress-ka dalka Mareykanka fariista wuxuu noqon doonaa qofka labaad hadii sida hadda uu ku socdo saadaashaas muuqata iyo waliba momentumkiisa uu guusha ku gaaray insha Allah uu gaarayaa wuxuu noqon doonaa qofkii labaad oo Soomaali ah oo markaasi ka soo muuqda Congress-ka wax lagu kala gooyo ee dalka Mareykanka marka la fiiriyo wiilkani slogan-kiisa ama hadallada uu campaign-kiisa uu ku dhaqaajinayo ayaa waxa kamid ah in la gaaray waqtigii ay dhalinyaradu wax hogaamin lahaayeen ayaa kamid ah aragtida sida weyn u iibsantay
oo wiilkaani uu ku kasbaday taageerihii ugu badnaa ee markaasi la arko oo qof madow ah uu ku yeesho gobolka Utah qaasatan magaalada ka dhigaysa musharax aad u cadcad isla markaasna ay taageerihiisu ugu yeerayaan inuu yahay mamdaanigii cusba ee ka soo baxay Salt Lake City ayaa waxay tahay in xilka uu goobayo uu yahay xil ay taariikhiyan iyo weligoodba iska ahaayeen kooxaha cunsuriga oo uu ku dhiiraday asagoo ka socda xisbiga Democratka inuu kursigaasi uu markaasi uu gadiyo oo uu ka dhigo qofkii ugu horeeyay oo Democrat ah oo madow ah oo asalkiisu uu immigrant ah oo xilkaasi ku guuleystay macnaheedu waa xaafad iyo magaalo iyo gobol ay u xiran tahay kooxaha cunsuriga ah ee ragga Trump ah calooshoodii ayuu ka soo dhaxbaxa waana mid kooxaha cunsuriga ana ka caraysiisay kana dhigtay wiilkan mid taageero weyn hela isla markaasna aad iyo aad looga hadalhayo marka la fiiriyo warbaahimaha gudaha ee dalka Mareykanka marka saddexdaas qodob oo waxyaalaha wiilkan ka dhigaya ama sababta loogu yeerayo inuu mamdaani u yahay waa geesinimada kursiga uu ku dhiirday oo kooxaha cunsuriga iska lahaayeen waa aragtidiisa siyaasiga ah oo ku salaysan in la gaaray xilligii ay dhalinyaradu wax hogaamin lahayd iyo waliba qodobka ugu horeeya oo ah inuu yahay in hadalkiisu kulul yahay oo aan baqaynin oo aan libiqsanaynin oo hadalka qaybta kulul u dhiibaya kooxihii kursigan ku fadhin jiray dhowrkii boqol ee sano ee la soo dhaafay sidaan idin sheegay Liban wuxuu u tartamayaa Congress-ka dalka Mareykanka haddii uu guuleystana wuxuu noqon doonaa qofkii labaad oo Soomaali ah oo Congress-ka dalka Mareykanka ka mid noqda wuxuuna soo labayn doonaa Ilhaan Cumar waxaan runtii aad ugu farxay inaan arkay Ilhaan Cumar oo indoos garaysay oo garab istaagtay iyo waliba Omar Fatah oo asaguna garab istaagay kana mid ah dadka hadda uu oleynaya Liban Maxamed inuu noqdo qofkii labaad oo Soomaali ah oo markaas ku soo baxa Congress-ka dalka Mareykanka iga soo qora maalmaha hadda fooda nagu soo haya Trump wuxuu bilaabi doonaa aflagaada ka dhana wiilkan dhalinyarada ah ee Liban Maxamed la yiraahdo sidii uu caayay Omar Fatah iyo Ilhaan Cumar arrintii ayaa bilaaban doonta waana halka aan doonayo inaan Soomaalida kala hadon ku iraado waxaan ugu soo socda mar kale in wiilka dhalinyarada ah ee Soomaaliga ah ee siyaasadda Mareykanka dhiig cusub ku shubay ahna nin Soomaali ah in dartiis weerar kale loogu soo qaado dadka Soomaalida ah oo markaas loo beegsado Soomaalida ama loo aflagaadeeyo alban wax kale lagu sameyn karin warbaahimahana nalaga caayo sidii la sameyn jiray haddaba maxay waxa ay Soomaalida reer Mareykan iyo kuwa kale ee degan gobolka Utah maxaynu u baahanaa inaynu sameeyno marka hore haddaan la hadlo Soomaalida Mareykanka degan qaasatan kuwa gobolka Minnesota degan oo ah kuwa ugu tirada badan labo kuwa Ohio degan oo ah kuwa labaad ee ugu tirada badan ee Mareykanka degan kuwa Washington degan iyo kuwa kale ee Maine degan afartaas community ayaa Soomaalida dalkan ugu tirada badan inteennaba waa inaynu u istaagno oo wiilkan aynu si weyn aynu u taageerno haddaanan maanta wiilkan taageerinina qof dambe oo Soomaali oo annaga naga mid ah oo han siyaasi dalkan ka yeelan doona magaca Soomaaliyeed kor u qaadi doona lama helayo waxaan noqonaynaa dad laga adkaaday horta waa inaan istaagno taas oo koow ma codayn karno anigu Ohio deganahay adigu waxa laga yaabaa Minnesota degan tahay waxa laga yaabaa Seattle degan tahay inaad Maine degan tahay inaad Nashville degan tahay iyo Tennessee inaad meelaha kale iyo California aad degan tahay iyo San Diego iyo meelaha kale Soomaalidu ay ku kala firarsan yihiin laakiin waxaan loo kaga baahan yahay wax kale oo aynu qaban karno oo aynu ku support gareyn karno waa inaan Liban u sameeyno horta fundraising xoog leh oo uu hela lacag uu ku qabsan karayo campaign weyn ma jiro qof annaga inaga mid ah oo Mareykanka caaw jooga oo campaign weyn qabsan karaya ilaa ay dadkiisa u taageero ka helo marka website-kiisa ayaan qaybta hoose idin kugu soo linki gareynaya $10 $20 $100 $500 $1,000 wixii alla wixii aad bixin karto Liban aynu garab istaagno qofka ugu horeeya hawsha galiyana aniga weey waa inaynu halka ka muuqanaa oo Liban aan tusnaa inaan garab taaganahay waa kuweena aan codeyn karinin ee gobolada kala degan reer maxaa la yiraahdaa Utah ayaga laba shuruud baa looga baahan yahay adinkuna waa inaad wiilka Soomaaliga wax alla wixii aad bixin kartaan dhaqaalaha aad ku taageertaan marka labaadna waa inaad ka shaqeysaan qaabkii loo taageeri lahaa doorashada primary ee hadda soo socota ee June dhacaysa
meesha lagu kala baxayaba ee la isku arkayo waa in idinku aad soo baxdaan ma hayna soo baxdaan hatta oo kaliya waa inaad saaxiibadiin u yeertaan waa inaad ku idin la shaqeeya ee gaalada ah aad ka soo dhaadhicisaan aad keentaan oo aad tirahdaan it is time to lead wala tirahdaan slogan sad isticmaalaysan waa timekii ay the younger generation ku ay lead gareen lahaayeen dalkan Mareykanka oo la yiraahdo wiilkan hadduu soo baxo Soomaalida iyo muslimka iyo madowga waxba u qaban karaya sida ilaahay uga noo garab taagan tahay waad aragteen markii hadda lagu soo duulay oo maxaa la yiraahdaa la yiri Soomaalida sharciga laga aruurinaya intaan ogaabay ilaahan banaanka taagnayd oo qabow way u taagnayd oo Minnesota ay dadkeeda la dareen ka ahayd intaan ogaabay mataqaana ninkii hatta Jacob Fry anigu Umar Faatax baan aaminsanaa inuu soo baxo laakiin naftirkiisu inuu noo shaqeeyo maxay ka timaada codkanaga ay ka timaada waa in marka qofka Soomaaliga ah ee berina anfacaya inta Congress-ka tag markuu Trump nacaayo ama dabcan Soomaaliya wax laga sheego dhigi kale uu edeb daraya waa inaan dadka taageernaa dalkeena halkaan aan ka difaaci karnaa to be honest with you waa in marka aynu istaagno inaan wiilkaan soo saarno fundraising aan u sameeyno dhaqaale aan u aruurino I hope mar dhowna imaan doonaan teamkiisu gobolada maxaa la yiraahdaa Mareykanka oo dhan and I hope in mataqaana ay noogu yimaadaan Ohio oo aynu la shaqeyno haddii ilaahay yiraahdo anigu markaa waxaan ka mid noqon doonaa dadka wareega oo ilaa iyo xataa Salt Lake City idinkugu imaaday ee Utah oo campaign-kaanu waa midkii kooxaha cunsuriga aan ku gowrici lahayn weey waa midkii aan ku tusi lahayn inaan nala burburin karinin oo aan dhibaatada loo geysan karinin meel walbana aynu markaas ka muuqanayno aynu nahay dad sharaf leh dalka wax ku soo kordhiyay dhalinyaradoodii ay waxtar leedahay bari iyo bari dambe dalka waa inaan madaxweyne ka noqonaa weey dadka Soomaalida dadka dalkan degan waa inaan soo fakirnaa weey oo dharo waa inaan meesha madaxweyne ka noqonaa haddii marka hadda aynu ku dhiirano in dhalinyaradeena halkan ku dhalatay ay noqdaan maxaa la yiraahdaa xildhibaano iyo madaxweyneyaal marka ugu dambeysay waxaan noqon doonaa dadka wax ka lead gareeya dalkan ay noqon doonaa dalkan lama kala laha laakiin dadka degan way kala abaabul fiican yihiin kuwa anaga naga yar oo naga quality yar ayaa saameyn weyn ku leh siyaasadda dalkan dalalkooda iyo meelo kalena markaas danahooda ka fushada wad ogtihiin mar rabaan inaan magacyada sheego waa taqaana marka intaasaan idin sheegaya support gareeya liban linkiga hoosaan idin kugu soo dhigaya website-kiisa wax alla waxaad ku bixin kartaan ku bixiya kuwa gudaha joogana insha Allah ta'ala arinta campaign-ka ee liban si weyn ayaynu uga hadli doonaa sidii aynu uga hadli jirnay campaign-kii walaalkeen Umar Faatax. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.